marka example 2 example 1 wuxuu la socdo wuxuu ahaa casharka hore linkiga waxaan idin soo dhigay xagga hoose raaca use the trigonometry waxa isticmaashaa saddex xagalkan hoose sida aad u heshid 6 trigonometry functionkii 6 trigonometry saa u heshid saamiyadoodii saddex xagalkii waa kaas dhinaca waxaan u bixsaday waa eedeydii waana ay leegtaa 6 dhinaca taaganna waa biideydii waxayna ay leegtahay 8 waxaan raadinayaa dhinaca ugu dheer oo la yiraahdo c ama hypotenuse la yiraahdo ka raadinaya marka intaana aan raadin waxaan isticmaalayaa wax la yiraahdo Pythagoras theorem oo ah c square hal weelaya a square plus b square dhinaca ugu dheer waxaan ku helayaa a square ka oo aan geeyo b square halka a iyo b ay noqonayso labadeeda dhinaca saddexaad midna u taagan yahay midna uu jiifo sideeduna waxay ila ekaanaysaa wax la yiraahdo hypotenuse marka intaas uu qorayaa marka givenkii baan qoranayaa givenkii marka aan qorto waxaan sameynayaa horta balsiga iska jeexay waxaan sameynayaa sideedu waxay ila ekahay hypotenuse-ka eedayduna waxay ila ekahay adjacentkeyga halka b-deydu ay ila ekahay opposite-ka waayo marka waxaan qoranayaa qaacidadii c square waxay ila ekahay a square plus b square marka si kaliya waxay ila ekaanaysaa intaas oo aan root-ka ka saaray 6 baan square oo eedii ahayd b-dii oo 8 ahayd baan square 36 iyo 64 hadii la isku darano waa 100 hadii xididka laga saarana waa 10 marka hadda waxaan raadin karnaa oo inoo fudud inaynu la soo baxno 6 saami ee trigonometry-ga la soo baxno by inoo fududaanaysa marka waxaan sameynayaa mid walba hortaydan ku qorayaa si fiican la soco waxaan sameynayaa marka ugu horeysa waxaan raadinayaa find the value of 6 trigonometry functions ama ratio way marka hadda ii qor waxaad qortaa qaacidadeedii oo asankii wax ku helaya opposite waan u qeybiyaa hypotenuse-ka opposite-kaygu wuxuu ahaa 8 waan u qeybiyaa hypotenuse-ka aan soo helayo 10 cos-kaygu wuxuu leeyahay adjacent-kayga aan u qeybiyaa hypotenuse-ka markuu saa leeyahay adjacent-kaygii waa 6 iyo hypotenuse-ka aan soo helo 10 taankuna wuxuu noqonayaa opposite-ka aan u qeybiyaa adjacent-ka waa 8 divided by 6 marka dhinaca kale falaad baan idinku muujinayaa la socda marka cosecant waa sin intervalkiisii waa kala rogaynaa 10 kan kor marinaynaa 8 aan hoos keenaynaa secant-na waxa weeyaan waa coska rogaalkiisa 10 kan ba kor keenaynaa 6 hoos marin cotangent-guna waa tanka rogaalkiisa waa adjacent-keenu kor keenaynaa opposite-kana hoos waa 6 baan kor keeyay 8 hoos baan example kale inoo xigay insha Allah